habeenka jimcaha waxaa magaalada tan London lagu soo bandhigayaa buug cusub oo ku saabsan qisas Soomaaliyeed oo ku qoran af Ingiriisi. Buugga waxaa qoray qoraaga Soomaaliyeed Nuuraddiin Faarax. Haddaba Nuuraddiin oo galabtan ugu soo booqday stuudiyaha BBC-da ayaa Farxaan Maxamed Jimcaale uu waraystay waxa uuna weydiiyey bal in uu inoo sharaxo qisada buuggiisa cusub. Buuggu wuxuu ku saabsan yahay wiil iyo gabar walaalo ah oo markii dagaaladu ay bilowdeen ka qaxli xamar oo laakiin reer xamar aha oo wiilkuna uu tegayo wiilka iyo hooyadii uu tegayo maxay ahayd Toronto gabadhana ay dalka Talyaaniga tegayso marka dambe ilaahay wuu u sahlayaa labadoodaba waxyaalihii ay doonayeen oo mid u horeysa gabadhu waxay noqonaysaa wax la yiraahdo photojournalist dadka kan sawirada qaada oo fashion ka maaragta ninkana markii dambe wuxuu u shaqeynaya wuxuu bilaabayaa inuu u shaqeeyo United Nationska markuu United Nationska u shaqeeyo waxaa loo bedelayaa Nairobi markii loo bedelo ayaa maalin maalmaha kamida waxaa la leeyahay United Nationsku xafiisyadoodii xamar ayay ku noqonayaan waxaad marka la doonayaa adiga ninka aar baa la yidhaahdaa aarow inaad tegtid xamar si logisticskii aad ooga shaqaysid sidii loo soo dhoweyn lahaa dadka United Nationska waxa weeye inta xasan sheekh madaxweynaha laga dhigay kadib marka waad xasuusanaysaa mar dhoweyto 2 sano ka hor waayadii xafiiskii United Nationska la weeraray oo shabaab ay weerareen ninkaasay dilayaan shabaab marka ninku wuxuu leeyahay 2 caruur wiil la yiraahdo wiilka waxa la yiraahdaa Saliif oo nin si caan aad u ah oo Malian oo musician ah ayuu ku sameeynaya marka sheekadu marka dhab u dhacay ba miswaa khiyaali sheekada badankeed waa khiyaali laakiin waxa bilowgu waa wax bilaabanayso wax dhacay oo dad la dilay marka mid kale oo yaab kale waxa weeye sheekada markaan qoray kadib oo aan ka sheekaynayo ruux Soomaaliya oo u shaqeeyay United Nations oo lagu dilay isagoo ruuxii u shaqeynayay United Nations Soomaalinimadii kadib ayaa wuxuu ilaahay ka dhigayaa gabaraan aniga walaalanahay oo la yiraahdo Basra Faarax oo ka shaqeynaysay UNICEF u shaqeynaysay oo joogtay Kabul in iyana sidaas oo kale loo dilay waan xasuustaa halkan baan ka sii deynay BBC-da marka waxyaalaha waxa weeye aniga iga naxiyay maxaa jira anigoo buuggii sheekadii ka qoray oo dilidii sidii loo dilay iyo wixii aan qoray oo draafkii u horeeyay noqladii u horeysay aan dhameeyay ayaa waxa kan ku dhaceen gabadha si shakhsi ay ku taabatay adigu sheekada shakhsi ay taabatay marka dadka la dilayo maaragtay dad wanaagsan oo shaqo wanaagsan dadkii u haya oo la dilayo iyo wax sidaas oo kale ayuu buugga ku saabsan waan gartay magaciisa marka haddaad sharaxdo magaca uu wato magaciisa waxa weeye ruux qarsoon noloshiisii oo qarsoon weeye hiding in plain sight iyadoo wixii muuqdaan aan laakiin la garanayn sababtuna waxa weeye gabar isaga ninka kan aar naag Ingiriisuu qabay naagtii Ingiriiskii isagii way kala tageen naagtii baa ka tagtay maalintay carootay hinaastay ayay ka tagtay marka isagaa carruurta soo koriya ma fahmaysa markuu isagoo soo korinaya oo Nairobina iskuul ay ka dhigtaan carruurta xamar isaga uu ka shaqeeyo 3 biloodba wuxuu u dhaxeeyaa xamar iyo maxay ahayd iyo Nairobi waan gartay marka buugga waxaad ku qortay af Ingiriis baad ku qortay af Ingiriis baan ku dadka Soomaalidana inta badan way yar yihiin waxa Ingiriiska aqriya ilama dadka Soomaalida haddii af Soomaali lagu qoro kale ku tahay inay wax akhrinayaan badankood sababtu waxa weeye annaga waxaana nala barin mid u horeysa wax akhriska especially khaasatan markaad akhrisku uu ku saabsan yahay buug sheekooyin iyo cilmi sidaas oo kale ah midda u horeysa midda labaad sabar ma lihin annaga buug 350 page ah safxadooda inuu ruuxii akhriyo afna ku akhriyo uu dhameeyo waa bilaabi naqaan laakiin ma dhamayn naqaan midda saddexaad waxa weeye aniga markaan wax qoridda bilaabay
waxaan wax qoridda bilaabay af soomaaligoonan qorayn. haddana mushkiladaha waaweyn oo aan doonayo maalmaha kan inaan ka hadlo oo ay habeenka muxuu ahaa jimcaha haddii ilaahay yidhaahdo oon sawaas ka hadlayo aan ka hadli jaamacadda London ku taalla jaamacadda London ku taalla waxyaalahan ka hadlayo waxaa ka mida sidaanu u dhaqan guuray oo af soomaaligii uu sii baaba'ayo af soomaaligii aanan carruurtii iskuullada loogu dhigin af soomaaligii awal moogtahay intuu siyaad barre jiray ma dhahayo siyaad barraa wanaagsana wuu xumaana ma lihi laakiin markuu isaga jiray ayaa la qoray af soomaaligana iskuullada lagu dhigan jiray hadda dhaqanguurka Soomaaliya u yimi oo dharka iyo keliya mooye waxyaalo badan oo waxaa jira dhaqanguur yacni waan dhaqan suulay sababtoo ah waxa weeye dadkii carabina ma yaqaanaan talyaanina ma yaqaanaan af ingiriisna ma yaqaanaan soomaaligiina ma yaqaanaan laakiin iskuullada badigood waa lagu dhigaa luqadahaas kale carabiga ha noqoto manhajyo kala gedisan ha lahaadaan laakiin manhajyadu midda u horraysa dowladda tani hadday shaqaynayso waxyaalaha ay ka shaqayn lahayd waxaa weeye hal manhaj Soomaaliya oo dhan in hal manhaj loo sameeyo midda labaad wiilka Soomaaliga ah oo iskuulka intuu subaxnimadii yimaado ilaa galabtii carabi loogu dhigo ama af ingiriisi loogu dhigo goormuu baranayaa carabi goormuu baranayaa af ingiriis goormuu baranayaa af kale maadaama ay sidaa tahay aniga waxaan dhihi lahaa af Soomaaliga ha loogu dhigo carruurta si muxuu ahaa inta laga dhigayo maxay khasab ugu noqotay annaga in la yiri Soomaaliga iyo Carabiga waa siman yihiin uma sinna maxaa jira afkii lama Soomaali badan ma taqaano Carabiga inkastoo siyaasiyan aanu ku jiro maxay ahayd waxa kan la yiraahdo jaamacad al-Arab waan gartay Nuruddin Faarax waxa tahay qoraa Soomaaliyeed ka soo qoraa caana Afrika iyo dunida oo dhan oo abaalmarino badan la siiyay laakiin dadka qaarkii Soomaalidu waxay isweydiinayaan muxuu luqadii Soomaaliga ugu qori waayay waa ku qoray mar horaan ku qoray 1973 1973 ayaad buug ku qortay ayaan buug ku qoray buuggiyo socda oo lagu daabici jiray joornaalkan xidigta October ayaa markii dambe qolya waxaa jira censorship maxaa la yidhahdaa kuwa kan kontroola jansuurada ayaa joojiyey markaasaa waxaa la yidhi Nuruddin wuxuu qoray ama qori doono laguma daabacayo joornaalada Soomaaliya waa la yacaburiyey sababtuna maxay ahayd sababtu waxay ahayd waxa la weydiiyey inaan macneeyo laba safxadood oo sheekada kamid ahayd ayaa la yidhi macne siyaasad bay ahayd Soomaaliya marka hadee inta la yacaburin lahaa midda u horreysa aniga wax qoridda waxaan bilaabay 65kii af Soomaaligana lama qorin ilaa 72 midda saddexaad oo muhiimka waxa weeye af Soomaaligii dadkii oo dhan baa ka cararayeen maxaad aniga leeyahay Nuruddin ordo af Soomaali ku soo qor especially sida khaasatan maadaama aan la akhriyeyn kolana warniyaho aan qootul yoomkayga ku jiree wax ka helay maxaad iga rabtaa waa gartay marka Nuruddin buugalaad qortay haddaan dib ugu noqono hadda cusubeed soo bandhigayso toddobaadkan waxa uu dhinaca kale ka eegayaa xitaa dagaalka iyo maxay ahayd siyaasadda qariban ee wadankii Soomaaliya iyo dadkii oo kala firxaday xitaa ninkan ku jira buugaada aad ku matalayso oo qof dibadaha dad u soo cararay weey saameyn inta leeg bay ku yeesheen baad isleedahay markaad eegto aad bay saameyn weyn u yeesheen sababtoo ah aniga waxaan idhaahdaa waxaan ka mid ahay Soomaalida ka faa'iiday Soomaalinimada waxaan annaga scholarship iyo duruus dibadana loo diri jiray iskuulaanu dhigan jiray afafka aanu baranana waanu afaf aanu naqaanay ahayn tacliintanada waa ay wanaagsanayd Soomaaliyeed annagii wanaagsanayn ayaa sida badan dadkanagii wanaagsanaay oo dhan malihi hadda Soomaalida dadka joogoo dhan baa maaragtay qoshanqaashara laakiin dadkii wanaagsanaa oo Soomaalinimadu ay ku weynayd
aanan qabiilka ku jirin, aanan qablayaasha la shaqaysanaynin ayaa ku yaraaday soomaalida, maadaamay dadka badankood soo carareen. kuwa hadda soo cararay oo mardhow soo cararay haddii tacliimba ma lahayn, awalna ma lahayn, haddana ma laha. marka soomaalidu waxay u baahan yihiin in labaad la dhiso, bani'aadamnimadoodii loo soo celiyo, mar kale dib loo dhiso. mar kale dib loo dhiso. qaabkee loo samayn karaya? waxaa loo samayn karaa iskuullada, dhinaca waxbarashada, manhajyada. haddii la yidhaahdo annaga caruurnimadanadii markaan iskuulka dhigan jiray waxaa la lahaan jiray wax la yidhaahdo bono condoto. iskoolada waxaa lagu khasbi jiray dabci wanaagsan iyo si wanaagsan inaad wax u taqaanid, macallinka inaadan ka soo horjeedsan, afka aad ku hadlaysid inuu noqdo wax wanaagsan, waxbarashadaadu inay wanaagsan yihiin. annaga waalidyadana dhalay badankood juhalay ahaayeen oo iskuullama dhigan. marka annagii iskuulladii dhigannay ayaa laidinku barbaariyey dhaqankaasana lagu barbaariyey. marka barbaarintii baa hadda sii xumaanaysa, barbaarintii ayaa sii xumaanaysa. hadda baarlamaanka hadda jira markaad tidhaahdid siday u dhaqmayaan waxaad ka garanaysaa in soomaalinimadii ay ku yar tahay. soomaalinimadu maxaad tusaale u soo qaadan kartaa? dee waxaan u soo qaadan karaa waxa kan la leeyahay gowma laha, wax waliboo dhaqaaqaba oo wanaagsanba wax lagu heshiin karo. waxaana loogu heshiin karaynin soomaalida, waxaanay waxba ugu heshiinaynin. midda u horreysa waxaa weeye waxaanan jirin isxurmayn. maaragta adiga haddii aad wax iga taqaanid, hadda maalan adiga waxaad ka shaqaysaa BBC da, nuurudiin aniga ah BBC kama shaqeeyo, ma aqaano sida loo waxeeyo ilaa la ibaro. dadkii iyagoona waxba aqoonin ay maalintaas daldalmayaan. nin u ogol wax ma jiro. marka haddii aanay ogolayn ruuxii, haddaanu u ogolayn ruux kale inuu ama ka cilmi badan yahay ama ka wanaagsan yahay, buuq badan baa dhalanaya. midda kale waxaa weeye war qabiil ruux ma mathili karo. farxaanoo adiga qabiilaad mathili kartid ma jirto. maxaa jira meelay kugu soo doorteen oo ku yidhaahdeen adiga noo hadal ma jirto. maxaa been la isugu sheegaya? been isu sheegiddaa weeye. sidee aragti ahaan adigu kula tahay marka in xal loo helayo? xalka waxaa loo helayaa ruuxii wanaagsan. war waxaan ku idhi 7 nin oo walaala oo Soomaaliya oo wanaagsan haddaan helo aniga 7 nin baan u dhiiban lahaa shaqada, intaan dhihi lahaa 4.5. midda labaad 4.5 kaaba khalada. maxaa jira dad baa la yasay oo la yidhi waa 0.5 oo maxaa jira miyaanu ka wanaagsannahay dadka? ma laga wanaagsan yahay dadka? laakiin aan taa su'aalkaa weydiiya middan 4.5 ah lama dhihin waa sidaasaa xaqa, laakiin xal weeye dheheen. xal maaha, waxay xallinayso. ugu yaraan haddii qaab la isku matali karo oo siba ay noqotay sama habboona. waxaaban ku yidhi aniga qabiilku ma aha wax mathili kara dadka, ma mathili karo. aniga nuurudiin faarax waxaa laga yaabaa aniga iyo walaalkay ama ninaannu ilmo adeernahay inaanan qol intaannu wada fadhiisanno 5 daqiiqa aanan sheekaysan karin, wax aannu ku heshiinno aanay jirin. laakiin dad badan oonan faamili ahaan haddii la yidhaahdo aanan waxba shaqo isku lahayn ayaa saxaabtayda. wixii wanaagsan aannu qaadanno, laakiin dad la xaqirayo. haddii qaanuun laga dhigo, xaqiraaddii baa qaanuun laga dhigay. dumarkii waanu maaragtay baabi'innay oo waxaanu nidhi dumar ma jiro, shaqo looma dhiibto. marka inaannu isku noqonno wey, bani'aadamnimadanadii baa shaki ku jira aniga sida ila tahay. kaasi waxa uu ahaa qoraaga Soomaaliyeed Nuurudiin Faarax, waxa uu waramayay wariyaha BBC da Farxaan Maxamed Jimcaale.